Guddiyada dastuurka ayaa maanta wadajir waxay kulan la qaateen guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Kulanku wuxuu ku saabsanaa u soo bandhigida guddiga joogtada ah ee golaha shacabka shantii cutub oo ay soo diyaariyeen guddiyadaasi, waxayna xubnaha guddigan ka warbixinayeen oo ay soo bandhigeen qaabka loo maray dib u eegista shantan cutub, waxyaabaha la bedelay ama la soo kordhiyey, qodobadii wadaxaajoodka laga galay iyo inta qodob ee farsamo ahaan loo hagaajiyey. Burhaan Aadan Cumar oo ah xubin ka tirsan guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu horreyn guddiga joogtada ee golaha shacabka waxa uu faahfaahin ka siinayaa shantaas cutub oo ay soo diyaariyeen iyo hanaankii dib u eegistooda loo maray. cutubka koowaad oo kale waxaan kala qaadnay arrimihii hadda aynu ku sheegaynay oo saddexda qaybood ah. maxaa lagu daray faqradaha lagu daray cutubka koowaad waxay noqdeen 5 faqradood. arki doona haddii la hadlo buugagta mid qaybay ku yaalaan haddii la hadlo isla arki doona. waxaa la tirtiray oo faqradaha laga saaray mataqaanaa 5 cutub waxa weeyaan waa 2 faqradood. qodobada isbedelka farsamo lagu sameeyey ama siyaaqa qaanuun loo qoray ama la habeeyey waxa weeyaan waa 9 qodob. cutubka oo dhan almost qodobadiisii oo dhan markaa duuhayn baa lagu sameeyey xagga farsamada. waxaan la soo kordhiyay waxa weeye xajood siyaasadeed u baahan qodobkan kuma jira, cutubkan kuma jiraan. xajood siyaasadeed oo loogu talagalay in ay ka doodaan kuma jiraan. marka waa diyaarsan yahay cutubka u horeeya. cutubka labaad saasoo kale u kala. intaasi kadib waxaa jira qaar ka mid ah xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha shacabka oo su'aalo weydiiyey xubnihii ka socday labada guddi ee arrimaha dastuurka, iyagoo dhinacoodana ka jawaab celinaya su'aalihii la weydiiyey. gabagabadii kulanka guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku bogaadiyey shaqada ay qabteen xubnaha guddiga dib u eegista dastuurka, isagoo dhinaciisana sheegay in ka baarlamaan ahaan ay si dhow ula socon doonaan howsha guddiyadaas ay gacanta ku hayaan. runtii warbixinta maanta sida wadajirka aad u soo gudbiseen oo aan halkaan ku dhagaysanay oo warbixin baarlamaanka khaasatan golaha shacabka ay ku qanacsan yihiin wixii dhammaystirana idinkaa idinka sugaya oo 5 cutub oo maanta aad soo gudbiseen. waxaan aaminsanahay shucuurta idinka muuqata waxaa waaye shucuur dhammaystiri lahayd dastuurkan meeshii loogu talagalay gaarsiin lahayd. annaga waxaan ballan qaadaynaa inaan idinla shaqayno. ta kalena waxaan soo kala caddayn doonaa hay-adaha ama ha noqdaan mar horaan u sheegay hadday yihiin kuwa caalami ay hadday yihiin kuwa local ah ama gudaha ka shaqeeya hadday yihiin cid kasta oo dastuurkan sheeganaysa inay ka shaqeeyaan inaan soo liis garayno, aan soo caddayno waxay qabanayaanna ay caddaato. waxaan filaa inaan la isku dhuuman doonin wixii hadda ka dambeeya. xukuumaddana wixii mas-uuliyadii ay ka saaran tahay waa weydiin doonaa oo ay ugu horeyso in lasoo dhammaystiro guddiga madax bannaan tiradii ka maqnayd oo laga sugayey dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. intaan la horgeynin rasmiyan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shantaas cutub oo ay soo diyaariyeen labada guddi waxay aadi doonaan gobolada dalka si ay la tashiyo ugu soo sameeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool maamul goboleedyada dalka.